دار والقوايا هذا إلهي دسايغان تحاني الحمان بتيستي وبدأ أبتلقا جيدة لكني وعرورتا ورابك دورمين لكني وعرورتا ورابك دورمين haweenkii gobolka Sanaag ee bahweynta Garxajis oo halkan isugu yimi waxay ka dhiidhiyayaan ama ay u dulqaadan waayeen muddo dheerna ay dusha bistaa uga huwanaayeen oo ka aamusnaayeen arrintii foosha xumayd ee shalay ka dhacday deegaanka gobolka Sanaag deegaanadiisa dhowdhow oo lagu baacsanayay ninka la yiraahdo Gamaal Baaxad kornayl ka ahaa Somaliland kaligiina ahaa waxa weeyaan waxaan u sheegayaa Muuse Biixi oo aan kala hadlaya Gamaal waa nin reer Ceergaaba ah deegaanada dhowdhow uu joogana waa deegaanadii dhulkiisii uu joogay xoolaha iyo deegaankuba u joogeen oo reeruhu u deganaayeen waxaan ku leeyahay haddii aad maxay tahay maanta aad tiri ha lagu baxo oo aad madaxtooyada dhexdeedii ka soo qaaday campaign waxaan ku sheegayaa jabhadda maanta tiri waxaan u baxnay inamada u baxay maxay tahay jiidaha yar yar u baxay ee iminka jooga ama caare ha noqoto ama ha noqoto Gamaalba ha noqotee waxa weeye inamadii ku shaqayn jiray ee ka tirsanaa dawladda maxay tirsadeen isweydii waxa ay tirsadeen adaa laga rabaa inaad su'aasha nooga soo jawaabto maanta gobolka Sanaag ka baxay 6,000 oo inay oo arday isugu jira shicib هذا سمعت فاهمين لحنا كم بواقرة ما يصير لو حيو بحين جمال وحب حيا طبعا كن أدمر أنا نجو كترنو أو قلت يا جوابها أي شوغان وحنولانا هاي موسى بيحي عبدي إن بدن بانو باقود صادري إن بدن بانو كل هذا اللي إن بدن بدنها كفريستي وحنكون شاقينا نبت جري عرقابا كومة تالو ساعدا وحنو هاي شبهدي محي هاي طلي وانا سارتين خد إيا دمر بوانا سارتين وحنكون شاقينا جمال باحد إيا أدباع سنة يسيد محي طلي كورنيلكا إيا ريرميقا أد حوله هادي الله يسي إيا دادك الهربادية أد محي طلي دولميداي وحنكون شاقينا حدانو ديار قروني حدا وحاسي ديقي عصابا نحرناي نبت جري ما هاي سنو إن بدن بانو باقو صادري باقي واد كسو جواب ويدي أدا أداد كجواب سيادي كله موسى ودانو كو شيغينا رق باكو أمرا مدحوينا ساعدا كو ما هاي سنو إن بدن بانو كنيري باقا نغا maxay tahay rag cadaalad darada ka tagay wax ka qabo rag cadaalad darada tagay wax ka qabo waxna waad ka qaban weyday waxaanu ku shaqeynaa Muuse Biixi Cabdi saacadan gobol Sanaag hadii lagu nabadgelyo taala kuma taala nabadgelyo saacadan nabadgelyo aad ugu soo hagaagtaa ma jirto mana taalo haweenkii Garxajis bari maanta dhiigay wada xidhan yihiin umadkoodii baa la laayay xoolahoodii baa la dhacay saacada wax nabadgelyo ku taala ma jirto adaa og ama gabiilay tag ama madaxtooyada ku jir ama gabiilay tag ama madaxtooyada ku jir saacada waa noo dagaal waxaanu la dareenahay inamada yaga maraafiida iyo suuga iyo BKM-ka lagu garaacayo waanu la dareenahay iyo kuwa kale arariyada u dalbatay intaba waanu la dareenahay waxaanu la dareenahay kornaan aare waxaanu la dareenahay Gamaal Baaxad intaba waanu la dareenahay weer casbaanu xidhannahay waadna aragtaa madaxtooyada iyo geedeebla lagugu imanaya fadhiimaysi waxaad ku fashilantay siyaasadda Somaliland waxaanu ka dhiidhiyeynaa oo maanta aan isugu soo baxnay madaxweyne hataa si hogba ku jirmaysid Gamaal wuu kuugu soo galaya halkan tuu ku qabsado taana ku qabsanaya ku talagal Gamaal ka harimaya taa ku talagal Somaliland adaa rogo gacantaada ku rogay adaa suuliga ku riday suuliga aad ku riday adun bay ku taala Sanaag nabad ka dhacaysa ma jirto dib uga dhacaysa ma jirto yaan baan lagugu sheekayn yaan mid koob shahaad siisay baan ku soo sheegin Sanaag way rogmatay adaa gacantaada ku rogay kuna sugimayno waxaan ka sugaynaana ma jirto waxa jeceshaayeen waxaan kala u sheegaynaa ragga dibadhilifka ee lacagta ku qaadanaya maamulba ilaa shaqayaasha ee maamulba le waxa jiray nabad ba ka jirta gobolka Sanaag gobolka shalay hal dheerga maanta hal waxaan leenahay ma jirtee gobolka Sanaag waxaan qaadanay marada cas
dagaal baan diyaar u nahay jabhadaasaan raacayna nahay wixii islaama oo shahaadanaya oo diinta nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sheeganaya waxaanu baaq ugu diraynaa diintii lagu dhistay Soomaaliland in hagbad lagu galay golaha baarlamaanka iyo Muuse Biixi iyo dhuuni qaatayaasha iyo maxay tahay daba dhalifyada maxay tahay gobolada u kala diintiiba hagbad lagu galay maxaa Muuse wax lagaaga sheegaya maxaa lagaaga cabanaya waxa lagaaga cabanaya gobolkan kuma yaalo harti maamulkiisa kuma yaalo garxajis haddaanu nahay ragga iyagaas la sufanayna Axmed Cadi baad waxaad ku haysataa jeelkii Hargeysa Gamaal baa xadda daba eryanaysa wallaahi oo billaahi oo tallahi ma aniga dhaatay inaan gobol sanaan labadi ku oolin anigoo ku hadlaya afka beelweynta garxajis inaanan waxba la haraynin mindi iyo daab iyo qori waxa la waxaan ka wax ku dilaya adiga laftirkaaga ayaan madaxtooyada kuugu imanaya waxaan ku sheegayaa Muuse Biixi inaad arrintaas si degdeg wax uga qabato habeen isdagaal ma garan waayeen dawladnimada xeerinaysa waxaan ku sheegayaa gobol sanaag haddaad isku timaado inaad kabaha ka carari doonto kabaha inaad ka carari doonto kuwii ka soo horeeyay ayaa kabaha ku cararay haddaad dawlad wax ka qaban weydo maxaa sheegayay arrintaas lugaynayna dumar haddaanu nahay bahalweynta garxajis ee gobolka sanaag joogta waa israacday dhaxday xiratay maanta waxa la dilay xalay waxa la dilay dadkayani baa la dilay maatadayani hermiyigi baa la dilay arigii baa la dilay waxaan ku uri kii 10 neef lahaa waxaan ku uri hal neef baa lagaga tagay shalayna dumar baa baaqay oo nabadgelyo ku baaqay galabtiina waa la baxay oo weerar baa la qaaday oo maatada cagta la soo mariyay haddaadan Muuse ka soo jawaabin dadka halka isugu yimi aadan ka soo jawaabin wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxba kama jiraan wixii lagu qabtay xitaa tan ceergaaba anaga leh anagoo garxajis baa leh ceergaaba ka bixi mayno halkan anaga leh awowayaasha yaa u dhintay adeerada yaa u dhintay calanka Soomaaliland anaga taagnay dhammaan dadka arkaysaan iyo inta maqanba warkii hablaha hore sheegeen ayaanu ku midaysanahay warka dabadeed aad waxaanu uga xunahay raggii u soo halgamay Soomaaliland raggii dhiigoodii u daatay raggii gumciyadu ku wada jireen nasiib darro weeye maanta in jeel lagu abaadiyo ina duurka la baacsado inina banaanka ka jirto waa jabhadaynaynaa waa baxaynaa waa dagaalamaynaa cudud baanu haynaa ragga yaga la baacsanayo ballanna waxaanu ku qaadaynaa inaanu hiil iyo hoo iyo muruq iyo maalba haddaanu haweenahay aanu la barbar taaganahay wassalaamu calaykum wuxuu dilay ma jiro waxa laala iyo cid uu kala tagay ma jiro Gamaal waa la iska baacsaday hubba maxay ahayd afarta koone lagala wareegay Gamaal waxa loo haysto oo lagu dilayaa waa dalkiisa iyo maxay ahayd waxa laala wuxuu geystay ma jirto Gamaal ma jirto joogan waxaan ka hadlayaa Axmed Xuseen Maxamed baan ka hadlayaa Mujaahid Axmed wuxuu ahaa ninkii u soo halgamay magaalada Ceergaabo oo midhaha ka dhaliyay iyo Soomaalilandba nasiib darro waxa isagoo maanta 30 caruur leh in la baxsado oo la xidho isagoo kaligiisa ayuu soo halgamay dhiigna u shubay calankana ku halgamay maanta waa nasiib darro in isagoo kaligiisa la 30 caruur la xidho oo kala jirtaba annagu haddaanu nahay dumarka waanu raacaynaa الرحمن الرحيم madaxweyne halka waxaanu ka sheegaynaa Corneyl Gamaal Baaxad oo la dulmiyay oo gurigii hooyadii jooga oo la soo weeraray oo madaafiic la dhacay oo isaga oo soo qabtay gaadhigii Puntland dhexmarayay oo keenay oo misana la weeraray isagoo sugaya afigaaga oo weerar culus lagu sameeyay sidii in qof gaala ah la dagaalamayo arrinka inaad si degdeg ah uga soo jawaabto baan doonaynaa madaxweyne ilaah baan kugu dhaarinaa madaxweyne waxaan doonaynaa inaad si degdeg ah uga soo jawaabto arrinka